qisadii buu ilaahay bilaabay waa ilmo yacquub 12 bay ahaayeen yuusuf iyo walaalkii waa isku bah sida cilmu taariikh u badinayaan culimadu sagaalka kalena waa isku bah wixii bahda la oran jiray balaayadii bahda bilaabantay iyo mushkiladeedii waa nimankii waaweynaa oo markaa da'dooduba aanay yarayn waxay u tashadeen walaalkoodii ka yaraa ee yuusuf haddii walaalnimo wax tarayso kiiska lagu haystaana ma aha gefuu ka galay laakiin waa maxaa loo jeclaaday iyagoo cajiib maxaa loo jeclaado aabbihii u jeclaaday weeye dembiga gaadhsiinaya ilaa in la dilo odaygiina gef bay ku xukumeen inankana in la dilo odayga dembigiisu waxa weeye midkii ugu yaryaraabu jeceli taasaa dembi looga dhigay waana iska dabiici xataa bani aadamka iska daayo markaad xayawaanada u fiirsato hadduu xayawaanka duurjoogta ah xataa bahalka wax cuna haddii uu dhowr ciyaala leeyahay waxaad arkaysaa isagoo jaqsiinaya oo u qaraabaya oo xanaanaynaya xabadiba xabaday ka yarta kuwa waaweyn dee uu tababarayo way ugaarsanayaan halkasii ordayaan laba hadlayo laakiin shimbirtaasi afka ka wuxuu guraysaa waakee ay u naxariisanaysa waa midiba midka uu ka yaryahay waa arrin dabiici ah oo markaas abuurka caadiga ah uu keenayo intaan insaanba la gaadhin xataa alxayawaanaat tiibay ku haystaan markuu qofku si qalloocan wax u eego caqliyadda uu ka fog yahay waxay yidhaahdeen haddii daa cid la jeclaanayo innagaaba fara badan innagaa koox raggii waaweynaaya berigii hore carabtu waxay odhan jireen marka mag la soo qaado waxa uu cunaya un dee ragga waaweyn laakiin dumarka iyo caruurtu waxba ma soo kordhiyaanoo magaha iyo dhaxalka iyo ragga warangalka ah ayaa cunaya markaa qofku si aan islaami ahayn marka u fikiro macnaheedu waxa weeyaan xooggaa shaqaynaya arrinkoodii markaa waxay ka wadi waayeen si odaygan ay cidlo uga helaanoo iyaga uu jeclaado oo uu u soo dhoweeyo inay dilaan yuusuf yaqlu lakum wajhu abiikum wejiga aabbihiin baa khaali idiin noqon waabay isku keen gudbeenba labadan yaryar way ku gudban yihiinba odaygii marka odaygan waa inaynu cidlo ka hellaabaanay waa isjeclaysiin qasab igu jeclow arrinkoodii halkaasuu maray culimadu waxay u badan yihin watakuunuu min bacdihi qowma saalixiin waynu toobad keeni doonaa marka qolyo wanaagsan baynu noqon markaynu dillo towbadduna way noo dambayn qiilkaana halkaana qiil ayay ka sii yaro baadheen raggu waa kala yaro duwan yahay mid baa wuxuu yidhi waar ha diline ceel ku rida ceelkaa madow ku rida si aanu hore ugu soo bixin waxaa laga yaabaa dee inuu inagana inaga hadhu ina daayo muddo kadibna ay qaataan dadkan sayaarada ama safarka oo meesha cagtu ay ku badnayd ceylka ay ku ridayaan ayaa safarka ku badan yahay ninkaasina intaasuu soo jeediyay haddaad samaynaysaan sidaa sameeye markaa qisada intaa daahirkeedu waa caynkaas weeye waxyaabaha fawaa'idka ah aynu kala bixi karno waxaa ka mid ah alcibratu bilkhawaatiim cibrada la eegayaa waa ciribta dambe nimanka waxaan sameeyey haddana aakhirkii gafafkaa kadib ilaahay uu ka toobad aqbalay oo aabbahoodna waa cafiyey yuusufna wuu cafiyey towbadiina dee sawfa astakfiru lakum rabbi ayaynu xagga dambe ku gaari doonaa ilaahay baan dembi dhaaf idiin weydiin doonaa arrin laga heshiiyey ayay noqoto markaa waxba loo dhegtaagi maayo gafafkan hore kol haddii towbo ay ka dambeysay waxaynu ka faa'iidaysanaynaa mashruuciyatu taxabubi ila asaqiiri waalkabiir qofka weyn iyo qofka yarba in ay dadku isjeclaadaan waa wax mashruuc ah sharcigu ogol yahay bal waxaynu ku soo maraynay ereyada yaa bunaya iyo yaa abati waa erayo isticdaaf ahoo qofka erika weyn markuu isjeclaysiinayo dee aabba buu leeyahy hebelow ma odhanayo iyo ninow ka yarina marka uu aabbihii isjeclaysiin inanka yarna marka la isjeclaysiinayo yaa bunay oo inagaa kusoo arkayn waxaynu ka faa'iidaysanaynaa ana alinsaana ma'muurun bilixtiraas qofka bani aadamka ah
feejignaanta iyo is-ilaalinta waa wax la faray caqliga iyo sharciguba way keenayaan sidaa daraaddeed ayaa waxaynu arki doonaa isagoo ka warwareegaya yacquub inuu inankaa isaga ah iyaga raaciyo haddii qofku maalan uu ku guulaysto feejignaanta ah dee wax wanaagsan weeye haddii ay waxba anfici weydana laa yaluumu calaa nafsi waanu iscanaananayn wuxuu leeyahy tallaabooyinkii habboonaa waad qaaday waxaynu ka arkaynaa halkan alxadaru min adunuub liannahu yataratabu bacduhaa min bacd waxaan gafafka la yidhaahdo in aada laysaga ilaaliyo iyo dembiyada oo way kala farcamaan bal inta dembi ay galeen eeg been bay sheegayaan haddana dil baa ku xigaya qaraabo goysnimo khiyaamo mu'aamarad dad isjeclaayo ay kala kaxeeyeen caasulwaalid waalidkii ay caasi ku noqdeen markaad gef ku dhacdo intaasoo gef baa ka farcamaya marka lama yaraysto waxaa la yidhaahdo gefka iyo dembiga midiba mid buu kuu dhiibaa daacada ama shayga khayrkuna midiba mid buu kuu dhiibayaa weliba dembiga insaanka waxaa ka sii shaqaysta shaydaanka marka intaasoo jaranjare ee ay mareen gefkaa ugu horeeya ee khiyaamada ah ayaa waxaasoo dhan keenay waxaynu ka faa'idaysanaynaa wujuud اlxasad caadaة bayna اlإkhwati wاlaqaarib waxaan la idhaahda xasadku dadka had iyo jeer isku lifaaqan ama iska agdhow ama ehelka iyo sokeeyaha ah wuu iskaga badan yahay dadku shaydaanku aada isu tuso weye shaydaanka aada isu tusayo wuxuu leeyahy kuwan kolleyba aan kala maarmay kala fuji oo kala kici marka islaamku had iyo jeer waxyaabaha uu ku dadaalo waxaa ka mid ah cafiska iyo saamaxaadda iyo dulqaadka oo waa ka nebigu lahaa salى اllahu calayhi wasalam laysa alwaasilu bilmukaafi qofka qaraabada xidhiidhiyaa ma aha qofka abaal guda uun cidda u wanaag samaysa uun isaguna wanaajiyo kaa maaha laakiin kuma xumeeya ama ku xadgudbo qofka xidhiidhiya qaar kuba jaray oo ku xumaynaya markaad xidhiidhisaa qaraabo xidhiidhintii aad helaysaa ajrigeedii waxaynu ka faa'idaysanaynaa yanbagii albucdu can asbaabi الshar waxa la yidhaahdo sharka iyo sababihiisa in laga durko oo waalidku had iyo jeer awlaaddiisa uu ku dadaalo waana sababta uu yacquub u ilaalinayo waladkaa isaga ahoo dhibaatooyin baa soo gaadhi buu leeyahy meeluhu ka soo gaarhi karaana waxaa ka mid a kuwana uu raaco ilaan hore u yaqaanay dhaqankooda dikru lmasaawi calaa sabiili الnasx yajuusu walaa yucaabu bihi shaks qofku gefuu leeyahy haddii la sheego iyadoo arrintuna ay tahay in la isu naseexaynayo sharcigu ma diidayo waxaynu arkaynaa yacquubo wuxuu la hadlayaa yuusuf markaasaa wuxuu leeyahay walaalaha riyadan ha uga waramin fayakiiduu laka kayda markaa inay shirqool samaynayaan ayuu sheegay taas sababta u sheegayaana waxa weeye gefkaas waa nasiixa talo marka haddaad aragto qof ku xidhmaya inaad gefka uu leeyahy wax uga sheegto si aanay hadhow isugu oodmin ama dhibaato ka weyn aanay u dhicin gefuu leeyahy inaad sheegtaa laa ba'sa wax dhiba malo waa wakhtiyadii la ogolaa qofka in wax laga sheego ile qofkana khatar galaye waxyaabaha fawaa'idka waxaa ka mida lishaydaani suldaة calىa kuli الnaas xataa calىa أwlaadi الأnbiyaa midkan oo inkaarqabahan shaydaanka la idhaahdaa awood buu ku leeyahay bani aadamka oo dhan iyo saamayn xataa caruurta nebiyada ilmo nebi waad arkaysa dee ilmo yacquub iyagaaba ambiye marka dambe noqonaya haddana ololuhu ku qaaday iyo halka uu la maray dee awlaaddii ambiyada kaa ay ka nabadgeli waayeen kuweenniina maxaad u malaynaysaa iyo innaga waa arrin aad iyo aad u cajiiba waxaynu halkan ka arkaynaa amru ru'ya mushkilu falaa tuqasasu ilaa calىa naasix manaamka arrinkiisu muhiimad iyo miisaan weyn buu leeyahay cid walba looma sheega ee waxaa loo sheegaa un qofkii naasixee wanaagsan ama sida fiican u cabiraya dee isagaaba laha u sheegin qoladan
siduu nebiguna caddeeyey calayhi salaatu wasalaam markuu qofku riyo wanaagsan arko ha u sheega buu ihi qof ay isjecel yihiin ama caalima laakiin qof cadowa inuu u sheego wuxuu u cabiri karaa sida qaladka ah sidaa qaladkee loo cabiray unbaanay u dhacaysaa markaa arrinka ruyadu dee cid waliba ma cabiri kartee cid gaara buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam annusxu laa yaziidu ilaa safaa'an liasxaabi safaa haddii qof la yidhaahdo hebel iska ilaali macnaheedu maha isku dir ee talada wanaagsan baa marar badan sidaa ku jirta walaalaha iska ilaali lama odhanayo odaygu sawkan isku diray ee colaad u geliyey inankii yaraa iyo inamadii kale arrin dantaa sidaa keentayoo dee kolka uu dilkan ka badbaadinayay iyo dhibaatooyinkan ma noqonayso isku dire wuxuu isagana ogyuu kalsooni ka qabaa inaanu wax colaad iyo cuqdada u qaadaynin uu yahay mid dhinaca fiican xaajada ka eegaya waxyaabaha aynu ka faaidaysanayno waxaa ka mida xikmaة الmurabi fii fahmi اlwaaqic wa muxaawalaة اlcilaaj qofka wax rabaynaya sida waalidka mucalimka qofka aqoonta leh khabiirka ahi waa qofka waaqica had iyo jeer aqoon u leh wax waliba say u dhici karaan buu sii odorosi karaya si uu arrimaha dawadooda oo qura aan loo raadina ka hortagga loo raadiyo mushkiladaha in laga hortago ayaa ka habboon in la cilaajiyo laga daba tago marka isagu cilaajkiina wuu kari karayaa ka hortaggiina wuu kari karayaa oo ka hortag buu ku dadaalayaa nebiyullaahi yacquub calayhi salaam si aan mushkiladii caruurtiisa dhexdooda aanay u dhicin cilmigan la yidhaahdo cabiraadda ruyada cid waliba ma cabirtee waa mawhuub lisaalixiin kayd اlxaasid waxadar اlxaadiq laa yugayiru اlqadara saabiq waxaynu ka faa'idaysanaynaa haddii qofku xaasid uu yahaa shirqool badan uu sameeyo ama qofkii lagu sameeyeyba uu aada u dadaalo si aan waxani u soo gaadhin midna qadarka waxba kama taro qofkii xumaanta wadee la ordayey ee shirqoolka samaynayey wixiisu uma hirgelayaan siduu u doonay siduu ilaahay qadaray u dhacaya walaa yanfacu alxadaru min alqadar kii isidhi ka feejignowna ololahan lagugu hayo iyo dhibkan isagana arrinkiisu qadarka waxba kama taro iyo feejignaantu inkastoo ay tahay mar walba in dee sababta la qaato oo la dadaalo cilmigan waxaa ku soo noqnoqonayaa cilmigan cabiraadda riyada qisada dhexdeeda dhowr jeer buu ayuu ku soo noqnoqonayaa waxyaabaha ay yidhahdaan culimmadu waa laga faa'idaysanayaa waxaa ka mida usuulu cilmi atawiil ru'ya macnaha tawiil ru'ya si marka riyada la cabirayo waxyaabaha la istinaaso ama khadadka la dugsado ama raadadka la raaco ayaa moogtahay laga arkaya oo qoraxdii iyo dayixii ayaa aabbe iyo hooyo ka turjubaya ama lagu fasiraya marka dambe xidigihiina caruurtii iyadoo weliba dayixuna odayga yahay qoraxduna hooyada lagu fasirayo taasoo ay yidhaahdaan waxaa laga fahmi karaa hooyada samafalkeedu inuu ka badan yahay aabbaha ila qoraxda kasii iftiin badane samafalka iyadu caruurta u samafalaysa iyo tay caruurtu iyada u samafalayaanba waxaynu ka arkaynaa lo-dii qaar shilis iyo qaar kale oo weydah iyo hadhowrhkii iyo waxyaabahaas waa waxyaabo sanadu ku fasiray markaas waxaad arkaysaa wixii waaqica ahaa ama jiray waxaan ahayn in loo rogi karo mararka qaarkood markaa waa hababka la raacayo ayay daliilu tahay mararka qaarkood magaca aabba waa lagu sheegi karaa awowga sida halkan aynu ku arkayno calaa abaweyka labadaadii aabbo dee midunbaa aabba u aha ka kale awowbu u yahay marka awowgii mararka qaarkood waa lagu sheegi karaa labadii awowba wuxuu ku sheegay awowgii koobaad iyo awowgii labaad buu laba aabbo ku sheegay marka inankaad awow u tahayna inankaygii waad odhan kartaa awowgaana waad odhan kartaa aabbahay dee naskaaba ina baraya waxaynu ka fahmaynaa shayga la yidhaahdo nicmada ilaahay hadduu cid ilaahay u nicmeeyo dadka ku xidhanina way la leeyihin oo iminka reer yacquub iyo reer ibraahim iyo reer isxaaq waa la isku wada xidhay marka mar hadday dad wada islaama yihiin
ammaanta asalku uu leeyahay farcuna wuu leeyahay ammaanta farcu leeyahay asalkuna wuu leeyahay wa kaana abuuhumaa saalixan waa inamadii waan wanaagsanaa aabbahood baa wanaagsanaa waxaa lagu xidhiidhinayaa wanaagga aabbahood baa lagu xidhiidhinayaa mararka qaarkood ayaa ilmaha yar waalidka lagu xidhiidhiyaa la idhaahdaan ninkani waa nin wanaagsanoo waa hebel aabbihii hebel wanaagsanoo la garanayo wey markaa wanaaggu qiimaha uu leeyahay bay ka mid tahay inuu dadka isku xiga ee isku xidhiidhsan anfacayo tarbiyada had iyo jeer caruurta la siiyo marka ay yaryar yihiin aad bay u anfacdaa waana ta ka muuqanaysa nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam qisadiisa inahaasaa waxyaabaha inooga muuqanaya mutabaadirka ka mida isma wada raacin karna derisba in baynu raacin doonaa insha allahu wallahu subxaana wa tacala aclam